Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waa tix gabaya oon ka tiriyay xasuuqii ka dhacay magaalada Bombaas ee gobolka Faafan. Taasi oo ahayd dad shacab ahoo rayid ahoo ugaas iyaga ka mid ah ugu talagalay inay caleema saartaan iyaga oo loo diiday isla markii ay kacdoon sameeyeen ee wadadii xidheen xabad iyo rasaas si arxan la'aan ah u toogasho ah. Dad badan oo odayaal iyo dumar isugu jira, duqeyti iyo dumar waxa weeye meesha lagu qashay si arxan darro ah, isla markaana dad ka badan 13 ruux iyo dhaawac oo ilaa dhowr iyo 30 ruux gaadhaya meeshaas waxyeello ku gaadhay. Marka arrintaas anigoo ka hadlaya ayaa tixdani waxay leedahay: utunbaa wadnaha igaga taal, uurka iyo laabta, ilmadii indhuhu way gudho ooyi kari waayey, maxaa odaya waayeeleh iyo ubadka loo laayay, ma arkaani baanahay maxaa sabab ahoon eeday, waa xaajo uguboon la arag, eega ka horowe waa waxaan adduunyada ka dhicin abadankeedii. Ubadkaad agoomaysay iyo odayadaad laysay, habrihii ilmada qubayay ee wada asay qaaday, waa aadame xaqood lagu gafoo la arki doonaaye, way aarsan doonaan koluun idam Ilaahay. Inaad inan gumee tahay ab iyo isirka soo gaadha oo uurku boogla ah sidii ehelu naareedka, dadkii aaska joogaad rasaas ku alxamaysay oo